waxaan horta u mahad celinayaa ilaahay na khalqay oo maanta suurtageliyay inaan halkan isugu imaanno xafladan sharafta badan oo aan ugu soo xireyno dufcadan tababarkii dheeraa ay soo qaateen waan arkayna maanta inay dhaarta ilaahay u mareen inay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan shuruucdana ilaaliyaan aad iyo aad yaan runtii ugu faraxsanahay sharaf weynna ii ah inaan idinkala soo qayb galo oo aan xariga ka jarno oo aan maanta markhaati ka noqonno idinkoo dhammaystay 9 bilood oo tababar adag ah oo maanta aad diyaar u tihiin inaad dalkiina u adeegtaan oo aad difaacdaan aad iyo aad yaan ku mahad celinaynaa qof walba hawshan ka soo qayb qaatay waxaa la idin dhaariyay maanta oo ilaahay hortiisa aad ku marteen annaguna aan markhaati ka nahay inaad difaaciisaan dalkiina diintiina iyo dadkiina shuruucda qaranka u yaalnana aad ilaalinaysaan waa mas'uuliyad aad iyo aad u weyn maxaa yeelay waxaad maanta ku dhaaratay inaad diyaar u tihiin inaad u dhimataan oo dhiiggiina u daadaysaan wax ka dambeeya ma jiro qof ku hibay naftiisa dalkiisa inuu ku bixiyo wax ka dambeeya ma laha taas runtii waxay ka turjumaysaa xaaladdan ku jirno oo laydinku dhaariyay inaad difaacdaan dalkiina markuu nabadda yahay iyo marka uu colaad ku jiro dagaal ku jiro maanta dalku wuxuu ku jiraa colaad xaalad dagaal oo adag ayaan ku jirnaa oo aanan been laga sheegi karin waxaa loo baahan yahay marka inaan isu diyaarinno dalkan siduu nabad ku noqon lahaa oo aad madaxa ku qabsataan idinka iyo annagoo idin iyo shabaab dalkan ma wada joogayno cid baa ku adkaanaysa waxaan aaminsanahay inaan ku adkaanayna annaga maxaa yeelay annagaa xaqa annagaa ummadda matalna iyagu waa qowlaysato loo soo diray dalkan inay burburkiisa iyo dhibaatadiisa ka shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya dad ajnabi ah waxaan idin leeyahay wax walba waxaan ka shaqeynaa wax walba inaan geenno ama aan awooddeena saarno ama dhaqaalaheena aan gelinno dhanka dagaalka marka idinka maanta oo laydin tababaray ciidanka asluubta macnaheedu ma aha inaad ilaalinaysaan maxaabiis kaliya waxaa la rabaa howlgallada dalka inaad ka qayb gashaan oo aan loo kala harin maxaa yeelay wax walba waxaan nidhi dhanka dagaalka hadday tahay dhaqaale hadday tahay awood hadday tahay khibrad wax walbaba maxaa yeelay dalku wuxuu ku jiraa dagaal adag ayuu ku jiraa oo loo baahan yahay inaan ka horeyno dalkan dalkeenaan ka horeyno qolooyinkan horarka ah oo dhibka ummadda Soomaaliyeed ku haya oo aan u naxaynin caruur iroole dumar cidna aan u naxaynin oo diinteennii suubanayd oo wanaagsanayd oo muqaddaska ahayd magac xumada u sameeyey waajib waxaan uga ah marka kulligeen inaan u istaagno sida caalamka kale dalkan inuu noqdo dal nabada waxa ka dhigi kara nabad waa idinka waa annagoo idil way qof gaar ah oo loo qoray dalka inuu nabad ka dhigo ama dhiiggiis uu huro ama u dhinto qof gaar ma jiro kulligeen waxa naga saaran waajibaad hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay ciidan nooc walbaba dagaalkan aan ku jirno kulligeen waa ka wada qaybgalaynaa idinkaan ugu horeeya oo ka qaybgalaya maxaa yeelay xagee xabsi ku ilaalinaysaan haddii dalkii uusan nabad ahayn waxaa loo baahan yahay in dalka aan ka horeyno qolooyinkan dhibka ku haya oo nagu soo duulay oo nabadeenna iyo horumarkeenna ka soo horjeeda caruurteenna iyo guryaheenna iyo caa'iladeenna aan ka ceshano yaa loo baahan yahay taasna waa taad maanta ku dhaarateen oo ilaahay hortiisa aad kitaabka gacanta ku saarteen oo naftiina u hibayseen annaguna ballan ilaahay waxaan ugu ah inaan idin hor soconno inaan idin garab soconno shacabka Soomaaliyeed ee idin daba socdaan maxaa yeelay waxaa dal xoreeya dad wadaniyiina oo
dalka la jecel ka hayso ka naxaya shacabka Soomaaliyeed waa u istaageen maanta waa u istaageen dalkooda inay difaacdaan idinkuna aad noqotaan hormoodka aad noqotaan idinka annagana wax walba oo awoodeena inaan raahno dhanka dagaalka weey oo aydan waayin wax alla wixii loo baahan yahay haday noqoto qalab haday noqoto agab wax kasta oo loo baahan yahay si loo guuleysto oo dalkan loogu soo dabaalo nabad inaan sameeyno waana waxaan ku khasbanahay waana waxaan u wada dhaaranay kulligeena aan gacanta u saarnay insha Allah waa guuleysanayna waxa loo baahan yahay kaliya inaan adkaysano xoogaa yar inaan adkaysano oo aan u dul qaadana dhibka maxaa yeelay hadii aan dhibkan loo dul qaadan oo qolooyinkan dhibka Soomaaliya ugu yimid aan la iska qaban waxay noqonaysaa dhiig iska socda oo aan dhamaan dhibaato iska socota oo aan dhamaan ma yeelino qofka bini aadanka ah waxa waajib ku ah inuu sharafkiisa iyo sharafka diintiisa ilaashado sharafkeenu wuxuu ku jiraa marka annagoo dalkan nabad ku soo dabaalna dawlad dimuqraadiyad ah oo sharci ku shaqeysa ay jirto iyo kala dambeyn markaas uu dalka wuxuu noqonayaa dal marka nabad la helo yaa laga shaqeyn karaa horumarku markuu bilowdo waxa weeye waa dal mustaqbal leh macnaheedu ay tahay idinkuna mustaqbal leedihiin caruurtiina mustaqbal leedahay waxaan u shaqeynaa waa caruurta aan awoowaha iyo ayaha u nahay weey waxaan u shaqeynaa ma aha caloosheenna ma aha sidaas darteed waa ku khasbanahay inaan dalkan aan dib gacantii ummadda Soomaaliyeed ugu soo celino inaan dib ciidanka qalabka sidii ugu soo celino inaan dib sharciyada ugu soo celino inaan dib maxaan ku raahdaa dimuqraadiyadii aan ka ballanay oo ahayd qof iyo codkiis aan dib ugu soo celino aasaas waxa uu ah in la xoreeyo in nabad la keeno in maamul wanaagsan dalkan uu helo intaas aasaas u ah waxaan noo ballanay kulligeen marka yar iyo weynba shacab iyo ciidan madax iyo qof walba oo Soomaaliyeed waxa noo ballana dalkan inaan ka horeyno oo aan banaanka ka dhigno qolooyinka horarka ah hadii ay noogu imaanayaan nabad ay qaadanayaan oo ay wada hadal ama hub ka dhigayaan oo ay ogol yihiin inay ummadooda ka soo mid noqdaan annagu horaan u ballan qaadnay inaan siinayno soo dhaweyn wanaagsan iyo inaan dhaqaale siinayno oo aan shaqo siinayno oo nolol siinayno iyagoo dib dadkooda ugu soo noqonaya oo ka ilaalinaya dhimashada iyo dhaawac iyo burburka ka ilaalinaya marar badan waa sheegnay inaan cafinay oo aan cafis u fidinay laakiin haddaysan qaadan cafis waxaan noo ballana in cid meeshaan ku harto annaga guuleysanayna annagaana u harayna dalka annaga iskale dalka annaga wanaagiisa ka shaqeynayna ballan ilaahay waxaan uga ah kulligiin ballan ilaahay waxaan ku ah inaad dhimataan Soomaa soo ballan ilaahay ma annagana ballan ilaahay waxaan uga ah wax alla wixii loo baahan yahay oo dhanka dagaalka inaan la diyaar garoono wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh